haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeed eheladii iyo faamilkii uu ka geeriyooday halgami Cabdullaahi Ciise Maxamuud kuwii muddadan ba iskaga tacsiyeynayay qaybtii hal abuurada waxaan ku soo tala galay suugaantan soo socota taas oo aan uga jeedo inaan ducada iyo xuska taariikhda intaba uga qayb galno dhan kastaba waxaan erayadii ku bilaabay sidan soo socota bismillaahi raxmaani raxiim halyeygii dadkiisoo cadiban caymi ugu toosay ciqaabkay shisheeyuhu badeen beesha ka carooday ummaddiisa curadkii u kacay een ciddina reeban sharduu ciirsigii libinta iyo noo cuskiyey guusha ciirsiga ciriiriga halgamihii u maray calanka Soomaali caqiibadaad noo gashaan kuugu cugannaaye carrana kuuma quureen inaan ku cisna mooyaane Cabdullaahiyow tii allaan la iska caabiyine xaqaan ciirin weeyo qabriga ciidda loo dhalaye mase haddii cirooliyo carruur qarankii kuu ciidmay oy calankii kuu gaabiyeen cududii Soomaali caloolsami dadkaagii hadduu caaqil kugu aasay calfatoo abaalkaa ma lubin sida caddaankaahe godka carala'aan jiif jannada caadil kuu garay cashaday xumayd geesigaan waajib ka cabsoonin gumaystiyo cawaankiisu kuu ciilka ladi waayey ciidiyo halgamihii u kacay ciriqa Soomaali abwaankii sokeeyuhu calmaday cadowna eedeeyey shardi aan xornimadii cuslayd cadarka soo gaaray caynka hanadkii aan furininoon dhiminin caynaanka galladii aad noo curisay baan kuu cutubinaaye cimri soo dhammaadaan bah jecel mawd ka celinayni ucub kuma dhigneen iil haddaan caalu helilayni Cabdullaahiyow tii allaan la iska caabiyini xaqaan ciirin weeyo qabriga ciidda loo dhalaye marse haddii cirooliyo carruur qarankii kuu ciidmay oy calanka kuu gaabiyeen cududii Soomaali caloolsami dadkaagii hadduu caaqil kugu aasay ciribtii abaalkaa ma lumin sida caddaankaahe godka carala'aan jiif jannada caadil kuu garaye cibradiyo waxgaradkii ilaah uu caqliga siiyey caalimkan waqiis cayn hortaal keliya ciilaajin oo u carbanaa camal falkeed cimilo soo aadan xilkii loo cayimay daacaddan cirif ka weydaaran cad addoonsi iyo aaminkan sharafta cood dhaafsan sadceebeed indheergaradkii aan lagu cambaaraynin gobannimada caankaa shardaan cudud ku soo hoynay cabashiyo halgamahaan dhaliil caajis lagu sheegin samihii aad nagu caawisaan naga cilaalmayne wadkuba kuma casuumeen haddaan caalu helilayne Cabdullaahiyow tii allaan la iska caabiyine xaqaan ciirin weeyo qabriga ciidda loo dhalaye marse haddii cirooliyo carruur lagu cisaynayo oy calankii kuu gaabiyeen cududda Soomaali caloolsami dadkaagii hadduu caaqil kugu aasay calfatoo abaalkaa ma lumin sida caddaankaahe godka carala'aan jiif jannada caadil kuu garaye caadadiyo magaceenna kii caalamka u naadshay cadraad timaha loo dabiyo awr dhigale caan sheegtay shir cayiman aqoonyahankii aan tala ka ceeriyoomin codkarkaan fagaaraha cabburin oon gar lagu ciilin dadaal uu ku cayshiyo wanaag ku cirbi mooyaane carrigiyo halgamahaan bulshada caasi ku hawoonin sir iyo caad nafurihii darteen col u gabraarayay
qofba camalkii uu subsadaa lagu caqeelaaye kafan kuguma coosneen haddaan geeri celin layne cabdullaahiyow tii allaan la iska caabiyine xaqaan ciirin weeyo qabriga ciidda loo dhalaye mar haddii cirooliyo carruur lagu cisaynaayo ooy calankii kuu gaabiyeen cududda soomaali caloolsami dadkaagii hadduu caaqil kugu aasay calfatoo abaalkaa ma lumin sida caddaankaahe godka carala'aan jiif jannada caadil kuu garaye caaqiba horseed baad ahayd caana badiyaahe cawiniyo garsoor baad ahayd aan cuqda lahayne ciiltiraha nabaddaad ahayd bela cufeeyaahe tiir culus ayaa naga dhintiyo curiyo taariikhe sidiise caadilkeen uu yidhee diintuna caddaysay ifkaba noolihii soo camira wuu ka caymadiye caam ahaan waxaa loo socdaa cuurkii aakhira ceerigan adduunyada hadday cidi ku waarayso carfoonow rasuulkii ayaa laga carrawsheene allahuma salli wasallim wabaarik calayh cabdullaahi ciisow qabriga ciidda loo dhalaye marse haddii cirooliyo carruur lagu cisaynaayo oy calankii kuu gaabiyeen cududda soomaali ciribtii abaalkaa ma lubin sida caddaankaahe godka carala'aan jiif jannada caadil kuu garaye dad badan baa dhinta waxaa la arkaa inuu ninkii uu soo gaari kara inuu yimaado laakiin sababta isugu yimid oo ugu weyn oo dadka ka muuqato waxay ahayd cabdullaahi inuu ahay nin waddanka u soo halgamay oo xorriyadda aan haysan raggii awaa'ilku ahay inuu yahay taas kulligayna oo dhan ragga meesha fadhiya aniga waa naqaanaa waxayna ila tahay waxaa la yidhi nabiga ayaan janaaso la soo agmaray markaasuu wuxuu yidhi inuu ahlu khayr ahdo ilaahay janno geeyo wajabad baa waxaan inuu yidhi ahlu janno inuu yahay ninka dambana wuxuu ahaayey allah ninkan soo hebel ma aha wuxuu ahay waxay u xagi sheegeen markaasaan wajabad inay waajibtay naar marka halkaan waxaan arkaynaa in dadkii dhammaayo imaanayay ama shalay ama tacsiir u imaanaya ama odayaashii inay cabdullaahi u ducaynayaan hadduu adduunka ka tegay oo wanaag ugu tegay inuu maaragtay wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب محمد والرسول صادر هو أيضا قد خلت من قبله رسوله كيسنا أي تجان وأيد كان رسوليات أفإن مات هدول أو قتل الذي أما أقول لكم انقلبتم بها بدون ميسان قال لماذا بدون قنيسان ومن ينقلب على عقبيه إلى نقطة وقال لماذا شيء قصة الأمور فريضة الله شيء فكان أبوك روح من كان يعبد لك يعبد محمد محمد رحمن ومن كان يعبد الله لك إله يعبد فإن الله ولا جيسي ومثل تاريخ جيسي يوحش الخارج في قلوبنا وفي تاريخ إن الله يقولون بين الله يدخل المرض وكسر صلاة الله dadku waa zamankan waa in la raaco in loo camalka duwan oo camalka waalid mageeb ama beer u waqfa u yiraahdo ilaahu waalidkii oo markastaba sadaqada midda daahirka iyo midda baatinka bixiya oo waalidkiisa ninkaas mar la arkaba acmaashiisa waa loo koryeelaa adooga qabrigiisa waalidka kada waa ogtihiin in ilaahay uu ka ballamay waalidka iyo asaga inuu meel ka dhigo marka waxaan ka rajaynaynaa yarka ama gabdhaha uu ka tagay inay ogaadaan in waalidka uu sugaayo inuu ka rabo sadaqo iyo duco iyo camal wanaagsan inuu u suubiyo oo waalidkiisa mataqaanaa asagana wuxuu ku helayaa adoo ka gaari weysay wuxuu ku helayaa sharaf iyo horukac iyo iimaan iyo cumri dheeri iyo taraadnimo iyo khayr buu ka helayaa mar alla markuu asaga bixiyo markii khayrka uu u tago meydka arwaaxda
oo nuur la helo yaa waxay leeyahay yaa nuurkan maxaa weeye waxaa leeyahay ilmihiisii baa sadaqo u bixiyey dadka kale oo meesha joogo way ku farxayaan leeyta hadda aan saas oo kale helin marka waxaan rajaynaynaa inuu ogaado taariikhdiisii yaa la xusaya marka nasiib baad ku leedahay haddii maanta mataqaanaa lagu tacsiyeynayo waddanka magaciisa iyo xurriyada magaceeda lagugu tacsiyeynayo marka sidaas daraaddeeda waxaa jirtay nabiyullaahi zakariya markii in wiil ma qabin ربي إني وهن العظم مني واشتعل نبي يعقوب أولادي يعني سيا بركة وحرمنا حريتي يا عبد الله وهرساني إن المتقانا إنك صغيرتاي مسكح هذا الجلسو إن المتقانا أباها ماشوا كأهاي الكون أنا نقولين معركتي لأنه العادي ما قصهم تاريخ ذا إيو واحد أركان أديك المتقانا وحرين مركوا إلى إلهي كم هذه ساعة أنا كان إلهي كم ذا كتجد وكان تجد النبي يعقوب نبي زكريا هو يرثني ويرثني واجعل ربي فضيل أولاد السيكة ولا مية لكن وحى إلهي لقد ضرب أولاد وناكسن على قارك إذا وحى كجرتا أفر شيء وحوي اللهم إني أقول يكون وبالا علي أنا قباس إيه نغضه غير كي نبتغانا وناكم ومن امرأة الناقبان كان منقلي تشيبوني إدو قيسو قبل آوان المشيب انت مدقنما أنا انقارين بدي إدو قيسة ودقنما دي صهر مرسا يعني كان منقلي وحان كان منقلي درس حن ومركز وناك أصوب بسا قرية مركز حمان صوب بسا نفاقية ومن جاري سوء إن عملت سوءا أفشاها وإن عملت خيرا كتمها مركا ويل وناكسن الله كابيبو مناسبة القوي تاسوي إن أدنى أساق هدو عيسى عبد الله عيسى نيدا وقتان أساق رفعت هذا يسبوع إلهي كبيرو أساق رفعت هذا ومرة يا ركول الدنيا تكوني بين الله يومي جوابيا ركول الدنيا تكوني بين الله يومي كيغا داوان يجين دمينيا دغا مريدي كان دواقيا دون كوليا ويمكيني الله يومي دردو هنون دقيسان وانهو وركيبو دافيو دفانا باتين دواقيا دوليا كيبو بيديه الله يومي وقميريا هبينك ودعو دعا مسيريا درت أيوفيا دواقيا دوليا